waxaan doonayaa marka inaan qodobkii kale ee labaad aan u gudbo waxaa la yiraahdaa dhalinyarada guurka maxaa ka hortaagan dhowr qodob baad la wadaagi doonaa hadii alla yiraahdo qodobka koobaad waxaan arkaa gabdhuhu gabar walba qalin iyo buuq ba intooda badan haystaan wiilashow qaar baa haysta sax si wanaagsan rag baa idin ceeb asturay sax khayr allah siiyo guurka iyo waxa uu xambaarsan yahay oon aad loo aqoonin qodobka dhalinyarada guur ka hortaagan guurka macnihiisa uu ku fadhiya ayaa la aqoonin hada Soomaana lahayn aqoonta macnahay ku fadhido lama yaqaan Soomaanayn hadaba guurka macnaha uu ka turjumayo inuu dhismo yahay inuu mas'uuliyad yahay inuu badin ummadeed yahay inuu hormar yahay inuu cifa iyo dhowrsoonaan yahay inaad dadnimadaada iyo raganimadaada la doonayo in la cadeeyo in arrinkaas iyo kuwa ka badanba qofku hadduu fahamsanayn guurka kuma degdegayo intaana waxaa garab socota zinadii oo banaanka iska taataala zinadii iyo xumaantii oo banaanka iska taala oo ninkii xataa qof dhan oo bini aadama aan zina la sameynaynin mobilkay zinadu ka buuxda xaqiiqadaba way soo daraadeed qofka damiirkiisa dhimanaya oo dareenkiisa dhimanaya oo dadnimadiisa dhimanaya markaad filimada xunxun aad ka daawato maxaa la yiraahdaa iikan bahalka aan gacmaha ku haysaan dadnimadii guurka ka dhimanaya marka waxyaalo badan oo dhalinyarada guurka ka hortaagan baa jira waa qodobka koobaad biidillaahi tabaaraka wa tacaala qodobka labaad cidii waalidiin nagala joogta ayaa raali noqon laakiin waa qodob waalidka ku saabsan ana waalida ana aaba caruur dhalay ilaahayna igu arsuqay ana isla hadlaya wuxuu leeyahay waalidiinta oo dhalinyarada u diyaarinin sidii ay u qaadi lahaayeen mas'uuliyadda qoyska gaar ahaan wiilasha waalidka waxa la doonayaa in uu diyaariyo qofkan uu dhalay asaga dhalay sidoo mas'uuliyaddan u xumbaari lahaa ooguna sheegi lahaa ooguna sharxi lahaa waxaad qaadi doontaa mas'uuliyad wiilyahow gabar reer dhaleen soo korsadeen heer jaamacadeed soo gaarsiiyeen oo aan ku aqoonin dabeecadaadana aan garanaynin ayaa ku dhixi doonta ku imaan doonta mas'uuliyad baad qaadi hadal aabba leedahay aabba kalaad yeelan hadal hal hooyo leedahay hooyo labaad baad yeelan hadal adigu qoys iyo qabiil ahayd qabiil dhan oo kale oo caruurtaada abtiyaal u noqon baa kugu soo biiri oo seedi baa la yiraahdaa oo sodog baa imaanaya mas'uuliyadda noocana sideen mas'uuliyaddan u qaadaa maxaa la iga rabaa maxaa waajibigu ah maxaan bixiyaa maxaan ilaaliyaa sida daraadeed baa dhalinyaro badan guurka waxaa ka hortaagan waalidiinta oo dhalinyarada u diyaarinin maxaa wiilasha u yiri gaar ahaan gabdhuhu inta badan waxaa la yiraahdaa gabadh yahay wax qabo wax soo qabo cuntada kari ha kala yaqaaneen oo professionalku waa gooni laakiin calaqal baasto iyo suuga yar iyo dalac bilaash iyo waxbay walaaqi kartaa adu ma garan kartaa adu ma xad karin kartaa waa laga yaabaa inay waxba karin aqooninba maqaaxibaad fuuli marka maqaaxibaad maanta cunto ka waayo ma taqaanid maba ku baxsanaba war saddex jeer hadaad cunto cunayso maalintii inta badan oodan midna karsan aqoonin sida adduunka ugu noolaan ya adoon ku oo ku shaqeynaya ma hooyada ma walaasha ma xaaskaaga oo kaliya aqli ma aha saadaradeed waa inaan dhalinyarada u diyaarino cuntada ma ka soo qaaday awal mas'uuliyadii sabarkii dulqaadkii sida reer ku dhaqi lahayd gabadhan soo soo jiidan lahayd sida u ixtiraami lahayd sida u qadarin lahayd caruurtaas u tarbiyaysan lahayd sida qaraabi iyo qoys oo la xiriir lahayd mas'uuliyadda waa in la baro dhalinyarada gabdho iyo wiil labaduba qodobka saddexaad awoodda dhaqaale ee dhalinyarada guurdoonka oo aad u kooban iyo arooska Soomaalida oo aad qaali u ah marka lagu daro meherka xalay muxaadaraanu ka dhigaynay maxaa la yiraahdaa iikeen Kampala baan muxaadaro xalay ku lahayn idinko dhalinyaro idinkoo kala ah sidan oo kala baan la dhowtay marka dambe nalka isu dansanay
marka gabdhihii codsi baan u soo jeediyey hadda gabdhahana waa gabdhihii kale codsi baan u soo jeedinayaa waxaan ku idhi adduunka ay shay kasta oo uu qofku bic geeyo oo la gado dukaan kasta baabuur ha noqoto dhar ha noqoto ay nooc wuxuu doonaba mar baa la rakhiisiyaa soo saas maaha hataa munaasabaadka gaalada xataa December markii la gaariyo Christmaskooda iyo ciidaha muslimiinta iyo soo wuxuu lama rakhiisiyo waxaan ku idhi gabdhaha reer Kambala 3 bilood hoos u dhiga mihirka waxaan ku idhi 3 bilood rakhiisiya wiilashana waxaan ku idhi jaaniskaasi lama hele hadday gabdhihii 3 bilood ay rakhiisiyaan hadday adigu wana 3 bilood ka faa'iideysato haddaad ka faa'iideysan weydo kor buu kacaya soo ma oo wuxuu qaaliyoobaya aan ka wada arooska awoodda dhalinyaro ee dhaqaale awoodda dhaqaale ee dhalinyarada guurdoonka ah warsoo arrinka xaqiiqo ma aha arrinka waa xaqiiqo hadda idinka waxaad tihiin arday baad tihiin waxaa laga yaabaa waalidkiin ayaa wax idiin soo tuura laga yaabaa idiin soo dira soo saas ma aha tayib ninkan ardayga ah ayaa laga yaabaa gabar kaloo ardayadu hadda halkan fadhido ay maqlaysa inay si iskaga helaan waa arday waa arta waa miskiin qorraxda ku xabkaysanaya way u jeedaada hadhowtaa laga yaabaa inay dhahdo hotel 5 star waa in lagu qabto meesha waa in arooskayga lagu qabto meherkayga waa inuu intaa noqdo waa inay adeer iyo abti iyo awoowe iyo abooto halkaa jooga ka soo qayb galaan lacagta waa in intaa ku baxdo aniga dahabkayga waa inuu intaa noqdo meherkayga way og tahay inuu miskiinkani qoreecdiiba hadday u geyso qada weeyo cuquushaasi ma shaqayso sideedabana waxaad ogaataan gabdhaha iyo wiilashaba waxa shaqaynaya waa shakhsiyadee lacag ma aha barnaamij ila tali waan kula taliya talama qaadan baan leehay oo adduunka laga dhagaysto gabar baa igu tiri Abu Talha talaan u baanahay ninbaa waxaan ku idhi waxaan doonayaa inaan magaaladan gabdhaha degan alaabta u taala inaan noqdo gabadha ugu alaab fiican ninkii wuxuu yiri walaalay ma awoodi karre naga daa maya ma jirto waayahay baan idhi si kale ma jirto maya dukaanka ugu qaalisanaa intuu tagay hadda kama hadlay ninka ma sax buu sameeyay khalad buu sameeyay la socdaya ayuu alaabtii soo kireeyay kiraya wuxuu goyn karaba ma 3 bilood buu soo kireystay alaabtay rabtay alaab ka khatarsan oo ka qaalisan buu soo dhigay gabadha iyadoo farxad la kala dhacsan ayay 3 bilood dhamaatay niman xoog badan oo shirkadda u shaqaynayay nimanka furfurada alaabta khatarta ah gow fak qab gabadha way istaagtay way fiirinaysaa alaabtii markay rarteen yay tir war maxaa dhacay wuxuu yiraahdaa alaabta guursatay alaabta raacdi hadda ani i guursatayna waa ka artay qofkaan ahay gabadhii way carootay oo guriga hooyad bay tagtay bal Abu Talha waa istiri waan u sheegay waxaan ku idhi mac sokor sabab waxay tiri hadda maxaa xala waxaan ku idhi waxaa xala hadduu joodari kuu soo dhigo kula seexo waa ballan bay tiri gabadha iyadoo xaamil ay soo wacday maalin dambe sheekhu jazaaka allahu khayran gurigii baad ii badbaadisay alaabtii alaab ka fiicanna waa la ii dhigay khayr allah ku siiyo marka waxaan rabaa inaan u sheego dhammaan dhalinyarada waxa la guursado waa shakhsiga ee waxa la guursada alaab ma aha alaabtu way jajabi alaabtu way dhammaan 2 jeer guri markii laga guurana way ku dhammaan ee waxaad ku fikirtaan ha noqdo shakhsigan muxuu yahay midda kale hadda odayaal baa meesha fadhiya khiyaara weydiiyad aniga waxaan ku jira odayaasha markaan guursanayo lacag intee dhammaanaystay aabaha bal weydii hooyadaa weydii nin walba ilaah baa u furay markuu guursaday ghanina ka dhigay waana fadli ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo ballanqaad nabi muxamed sal ly slam uu yidhi 3 anaa u ballanqaadaya una kafaala qaadaya waxaa ka mida ninka u guursada inuu dhowrsoonaado
zina iyo xumaanna uu ka dhowrsado qofka intaa daraaddeed u guursada nabigu wuxuu yidhi anaa u ballan qaadaya in uu wax ku filan ilaahay siiyo subxaana wa tacaala saa daraaddeed waxaan leenahay dhaqaalaha ha la yareeyo weliba warkani gabdhuhu ku socdaa wuxuu ku socdaa gabdhaha waalidkii dhalay wuxuu ku socdaa waalidiintan meesha fadhida anigu igu socdaa laftaydu laba aan hadda dhalay baa la guursaday maalin dhaweyd midna wax guursaday midna la guursaday kuwa kalena way joogaan gabadha lagaaga fadhiyaa waan ka xubo horta laba gabdhood buu ilaahay siiyey midna waa la guursaday midna waa la soo doontay waxaan ka rabaa markaynaan dhaho waalidiintaas aanba ku jiraa waxaan u baahannahay waalidiin haddaan nahay inaannu ku kaalmayno da'yarta iyo dhallinyarada aan hoosta soo gashanno ayagaa noo shaqayn doona aabbaan ka dhiganaynaa hooyaan gabadha mataqaanaa hooyey ka dhiganaysaa hooyada dhashay wiilka ayagaa u shaqayn doona ayagaa meel gaarsiin doona maxram u noqon doona xajka geyn doona dhaqaalu alla u furi doonaa yaan dhallinyarada lagu xirin waxayna awoodi karin war dadkayga maqlayow dhegaysta adduunkayga maqlayow dhegaysta war idinkaan idinla hadlayaye dhegaysta war aabbayaalka adduunkaan la hadlaya dhegaysta war hooyooyinkaan la hadlaya dhegaysta idinkay dhegaystade idinkay dhegaysta war gabdhow dhegaysta ha la khafiifiyo guurka haddii kale zinadaa badanaysa haddii kale zinada waa xaqiiqo weeye zinadaa badan oo xumaantaa badan oo guur la-aantaa badan guurka ha la khafiifiyo qodobkaas waan ku dheeraada waa muhiim oo gabdhuhu meherka ha khafiifiyeen oo gabdhuhu arooska ha khafiifiyeen arooska war arooska khafiifiya oo arooska yani ha la sahlo aroos walba aroosku ka dhib yar yahay insha allah ka baraka badan yahay qodobka saddexaad oo dhalinyarada guur istaagan ka hortaagan yaa tahay yuu yahay reer hebel isma guursano oo dhalinyaro badan ku guurseegeen welina socoto ma maqashay reer hebel isma guursano yaa dahaba yaa sadulli ah muxaadaraadkaas waxaan dhigay dhowr bilood ka hor yaa dahaba yaa sadulli ah qolo walba wuxuu leeyahay annaga soo maaha annaga waxaan laga abuuray dheeman oo gabadhanna wiilkanna wallaahi qoladan isma guursano oo idinku fiiri mutacalimiin baatiin muthaqafiin baatiin jaamacaad baad baranaysaan yaad dhigataan waddankiina waad ka soo tagteen ilbaxnimo ziyaadaad hesheen waddamo kalaad timaadeen waxbaad akridaan waa in maskaxdiinnu xor noqoto waa inay maskaxdiinnu xorowdo oo hadday aabbayaalkiin iyo awowyaalkiin ay ugu diidayaan gabadh wiilkan reer hebel weeye ama wiilkan gabadha loogu diidayey waa inaad idinku arrintaa ka xorowdaan ood idinku ummadda